waxaan rabaa horta xogta dadkii gudbiyey inaan ku bilaabo dadkii cabdikariin kiiskiisa ku lug lahaa oo halkan aan ku qortay ee la hubo ayaan rabaa inaan ku bilaabo magacyadoodii maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhashay beesha maryaxaan daarood xasan cali qayd oo dhashay mursada hawiye cabdullaahi maxamed sanbilosh oo dhashay xawaadle hawiye mustafa sheekh cali dhuxulo oo dhashay mursade hawiye cabdiraxmaan cumar cismaan yiriso oo dhashay abgaal hawiye taabid cabdi maxamuud oo dhashay abgaal hawiye saadaq john cumar oo dhashay habargidir hawiye bashiir maxamed jaamac gooba oo dhashay madhibaan axmed cali daahir oo dhashay dir mahdi maxamuud guuleed oo dhashay ciidagale isaaq fahad yaasiin xaaji daahir oo dhashay reeo xasan cabdirasaaq shoolo oo dhashay leelkasa daarood cabdinuur maxamed oo dhashay reeo xasan cabdullaahi caanad oo dhashay maryaxaan daarood cabdiraxmaan kulmiye xirsi cabdiraxmaan dheere oo ah xildhibaan oo magaciis runtan uu yahay xasan jaamac xirsi xasan dhuux oo u dhashay reew qudub sheeqaal hawiye iyo jamaaludiin mustafa cumar oo u dhashay sayxawlo karile hawiye iyo maxamed cabdi xayir maareeye oo u dhashay habar jeclo isaaq intaa ayay ahaayeen horta ragga la og yahay ee mataqaanaa cabdikariin aftuubkiisi toosa uga qayb qaatay faahfaahinta koowaadna kubi kasoo dhiiba gaalkacyo waa faahfaahintan ku sheegi doonaa marka weliba diyaaradda intii oo cabdikariin ii xaqiijiyey oo isaguna jimcaha ku sheegi doonaa shirkii jira jimcaha hadduu la helaado ninka diyaaradda weliba diyaaradda waxaa weeye cabdikariin diyaaradda lagu qaadayo waxaa soo kariyay diyaaradda taabid cabdi duqi hore muqdisho diyaaraddu la raacay ilaa baydhabo la tegay taabid kadibna adsaabo la sii aaday diyaaradda waxaa ila saaraayay weli taabid cabdi mustafa dhuxulow iyo ninkii la sadrajon iyo jamaaludiin mustafa cumar ninka safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya marka waxa weeye hadalka marka waxaan ku bilaabayaa cabdikariin sheekh muuse ugu dambeyn 5 saacadood ka hor ama 4 saac bar ka hor ayaa ra'iisul wasaaraha wuxuu la kulmay Ethiopia Abiy Ahmed wada hadal dheer kadib warqadii cafiska ee sida rasmiga ahayd ayaa la siiyey anigana cabdikariin waxaan wada hadalnay aduu muddo hadda laga joogo 1 saac ama 1 saac oo 5 daqiiqo dhiman marka cabdikariin wuxuu ii xaqiijiyey maalinta talaadada ah hadduu ilaahay yiraahdo 2 duhurnimo inuu kasoo degay garoonka Jomo Kenyatta mataqaanaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya marka cabdikariin hadduu ilaahay yiraahdo يوم 3 wuxuu joogaa maalinta talaadada ah wuxuu joogaa meesha leedahay Kenya marka cabdikariin si guud ayuu faahfaahin u bixin doonaa oo shacabka Soomaaliyeed u faahin doonaa sida loo afduubay cid afduubkiisa ku lug lahayd laakiin hadda si hordhaca wuxuu iga codsaday anigii gabadhiisaba naga codsaday inaan la hadalno idaacadaha waaweyn ee caalamka qaybaha afka Soomaaliga iyo kulli inaan la hadalno VOA-da iyo BBC-da iyo Universal iyo kulli inaan la hadalno dadka internetka kala hadalno anigii fartuun qalbi dhagaxba ayuu naga codsaday si wada jira wuxuu meesha ka saaray wuxuu wiri nimankaasi waxay isku dayayeen farmaajo iyo kooxdiisa waxay isku dayayeen in xabsiga u dhex dilaan in xabsiga lagu sii hayo laba mishin waan ka badbaaday haba yaraateen siideyntii soo kuma lahayn siideynteeda waxaan uga mahad celinayaa oo cafiyay oo warqad cafisi ii qoray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo uu sheegay inuu xor yahay Ethiopia meesha raba ka mari karo oo dowladda taga aan la hadli karin oo ay wada hal dheer yeesheen marka intaan u gelin